barnaamijkan inaan ka qayb qaato su'aal baad weydiisaa balada dadka isku sheeg adigoo soo koobay yani yaa tahay ama maxaa tahay doorta magacayga wadigaa sheegayo waa Kaltuun Sheekh Xasan haddaan soo bilaabo tusaale ahaan oo kale waxbarashadeedii halkan ka bilaabay shaqadeedii oo kale ilaa iyo hadda waxa weeyaan horta waxyaabaha ugu horeeya qofku lagu soo barbaariyo waxa kamid ah malcaamad quraanta kulli laga soo bilaabi jiray annaga waqtigeeyagii malcaamadii ugu horeeyay galay daruuraha ay ku taalay xaafadaha daruuraha iskuulka biyo dhacayga hoose ayaan ka galay dugsigeygii hoose ilaa kii dhexe dugsiga biyo dhacay anigoo markaa bilaabay haddaan sanadka idhaahdo 1980 ardaydii markaa la qoray iskuulka biyo dhacayga hoose da sidaas bay u sii socotay haba ka qaban biyo dhacayga hoose kii dhexe markii dambe ee secondary aan galay runtii waxaan ahay ardaydii markaa aan dhamaysanay waqtiga aanay u suuro gelin dagaalka ka dhacay form 1 markaan galay dagaal ku dhacay dawaal la qaxay oo kulli anigu waxaan ahaa dadkii markii xamar u qaxay ka sii watay markaa halka waxbarashadoodii haddana dagaalkii markii dambe muqdisho lafteeda ka dhacay muddo ka bacdi Hargeysa xora aan markii dambe haddana soo galay runtii wadanka weyn oogayno markaa jaamacad ma jirin laakiin fursadihii ugu horeeyay ama jaamacadihii ugu horeeyay haddana wadanka laga bilaabay kulli ma andeynina waan ka qayb qaatay digriigayga ugu horeeyay markaa waxaan ahaa global studies iyo international relations anigoo haddana raaciyay markii dambe masterkaygii oo ahaa isaguna international cooperation iyo humanitarian labada isugu jiray runtii labada markii aan soo dhameystay waxa inta haddana aan dhex weydiiyay shaqooyinkii aan markaa ku jiray shaqadii ugu horeysay aan bilaabay haddana khaldanin malaa waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay ee bilaaba shaqada rugta ganacsiga ee Somaliland Chamber of Commerce waxa xogeeyay markaa guud ahaan jiray waxaan filayay sida la sheegay inuu dhintay Axmed Maxamed Raagan in la oran jiray berbera xafiis baa ka jiray markaa laakiin Hargeysa markay timaado xafiiskii ugu horeeyay la furay ayuu ahaa kaas aan muddo badan runtii ka soo shaqeyn jiray markii dambe xogeeyaha guud haddana Cabdullaahi Diiriyaan oo ahaa runtii markaa rugta ganacsiga waxa ka soo shaqeeyay haddana waxa ay suura gashay markii dambe inaan u wareego dhinacii kale ee iyaduna ururada civil society-ga anagoo markaa sameynay urur la yiraahdo waabo oo ka shaqeeya xuquuqul insaanka iyo dhinaca nabadgelyada iyo wacyigelinta waxaan haddana ururo badan oo isku jira ayaan haddana la soo shaqeeyay waxa kamid ahaa ururka CCBR oo kale waxa kamid ahayd nagaad waxa kamid ahaa markii dambe waxaan iyadana aan noqday focal point-ka ururo la oran jiray G16 oo Puntland iyo Somaliland iyo Soomaaliya isugu jiray taasoo markaa aan la ii doortay markii dambe aan noqdo focal point isku xidhaya saddexda wadan ama saddexda ururada ka shaqeynayay iyadana halka muddo runtii aan kula soo shaqeynayay waxa markii dambe haddana iyadana aan noqday focal point ka dhaxeeya wadamada Suudaan oo kale South Sudan Eritrea Djibouti Uganda ay isugu jiraan iyo Somaliland halkaas iyadana markii dambe ay noqotay inaan markaa ku guuleysto ama jaaniska imtixaan galo oo aan noqdo focal point-ka wadamada isku xidha ururada ka shaqeynaya ururadaas markaa inta badan ka shaqeynayay iyaguna dhinaca wacyigelinta xuquuqul insaanka horumarka ama development-ka deegaanka yani wax far badan isku jira ay runtii ka shaqeynayeen markii dambe haddana waxay noqotay inaan noqdo gudoomiyaha dalada nagaad iyadoo ka horba aan ahaa shaqaalaha ka shaqeeya ama project managers aan kamid ahaa markii dambe waxay suura galay markaa ururadii nagaad in ay doortaan gudoomiyaha isku xidhka dalada nagaad gudoomiyaha isku xidhka dalada nagaad muddo badan baan ahaa iyadoo haddana ay berber socotay in nagaasimo guud ka ahaa ururkii waabo oo isaguna runtii in badan ka shaqeeyay dalka Somaliland haday tahay gobolka Maroodijeex iyo Togdheer u badnaa oo ka shaqeeya hawraha horumarka iyo ka shaqeeya dhinaca dumarka u badnaa runtii oo noo suura geliyay markaa inaanu bulsho badan aanu sameeyno oo isku xidhno oo community fara badan isku xidhno
oo imika ay ku dhow yihiinba meelaha 20,000 ay gaarayaan dadkii markaan la shaqaynaynay sidiina isugu xidhan oo imika Hargeysa kala hada timaado si dhibiyana kuugu geyn kareen yani dadkii aan la shaqaynaynay oo bulsho badan oo hadii cuqaasha tahay iyo hadii dumarka tahay hadii dhalinyarada tahay intaba aan runtii wada shaqaynaynay iyadoo mar walba dhinaca wacyigelinta hadii nabadgelyada tahay iyo hadii dumarka furuqaadistooda waxbarashadooda iyo dhinaca kale horumarka kale ay tahay intaba aan ka soo shaqaynaynay waxa kale iyadana aan la shaqeeyay wasaaradda qorsheynta qaranka aniga markaa ku jiray khibradii markaa sameysay qorshe qaranka ugu horeeyay Soomaaliland National Development Plan-ka waxaan ahaa dadkii markaa sameeyay baan kamid ahaa dad soo qaada markaa buugga waad ku arkaysaa magacayga iyo waxyaabihii qaybtaan ka qayb qaatay oo sectorskiisa markaanu u dhanayno group dhan aan ahayno runtii ka soo shaqeeyay waana de qorshaha qaranka imika lagu guuleystay runtii imikana qaybtiisii labaad maalintii dhaweyd la daahfurayay intaas waxa ay dheer markaa haddana waxa ii suura galay in aan qoladaas saxa network la yiraahdo aan ka soo sheekeynay ee wadamada Horn of Africa aan focal point-ka u ahaa mar labaadkii haddana Uganda la isugu yimaado haddana wadamadii ay ii soo jeediyeen inaan u noqdo markaa gudoomiyaha ka dhaxaynaya qoleenka Horn of Africa ka shaqeeya runtii markii dambe gudoomiyaha saasa la igu dartay saasa gudoomiyaha saxa intii ka dambeysay markaa hadii aan soo koobo waan soo koobi xajcelana soo koobo shaqada imika aan hayo oo ah de komishiga doorashooyinka qaranka